أنا بجيبها أقول لك أستعجل كذي يعني جيس مركا قاركود هذا أقولان كراي صدق كراسي جولستان أو فرح أما أي بورتو وكابو أميو إن سيرو لا صوب بلاد أما أي كرو كعاد أو المرو تكتو السلام عليكم دمانتين aad baan islaam farxad iyo waxaan dareenkayga ku cabiro waan maskaxdayda ka raadinayaa sababtoo ah waxa ii muuqda riyo aanu dhowr sano eegaynay oo hadda dadkaas aadka qurux badan ay ka soo qayb galeen marka koowaad aad baan ii mahadnaqayaa insha Allah 15 daqiiqo ee soo socda sidoo kalena waxaan ii sharixi doonaa الموضوع عمانتا كهذا موضوع برنامج كدم بقولنا سينو سومالي كاهان generational wheels أنو أديك كرينا سيدينو دلينتا إنك مستقبل كينا أنو سامين دونا مركز كوبات بروفيسور كل ما مشينري بالمصورتها وحن جعلان لها بل إنا نويديو قف مال معناه قرنا مجرى سيبرسات مال مال أنا كلا هانتي واحد كلا محكت مال ولا مال ولا ما حلو هذا جاكتين مال وحويان كلي ومالد ويان وحلا ماليا علمي ولا ماليا وحلا ماليا دقالة لا ماليا dadka isbaranaya oo ismaalaya oo isweydaarsanaya maxaa la isku maalaya waxa la isku maalaya vision iyo mustaqbal iyo meel loo socdo kaas oo bulshadeenu aynu isku diyaareen halkeen socona marka mawduuca maanta ka hadlayo wuxuu noqon doonaa seen generation keena aynu ugu diyaarin karaynaa inaan maskaxda maalka muruqa iyo dhaqaalaha iyo sidoo sheegay ustaadku cilmiga aan ka barni doono inta aynu guda gelin waxa rabaa waxoogaa inaan anigu iskiinba magacayga Camaar Maxamed Cabdilaahi dadka Germany baa iga imiday waxaan jeclaysan lahaa dadkiina aadka u quruxda badan leh in aan la wadaago qiso shakhsiyankayga ka turjumaysa taasoo ah aniga aabahayna dhex martay markii aan yaraa aabahay wuxuu ahaa dadkii Soomaaliya askarta ahaa sidoo kale macallin buu ahaa wuxuu aad u jeclaa ciyaarinta jaska iyo shaxda soo ciyaaro markii dawladdu burburtay kulay dhaqankeena Soomaalida iyo sida waxa maamulkii qabtay hooyooyinkeena hooyooyinka sacba loo tumo noloshii waxa dabartay hooyooyinka aabayoonkuna markay waayeen shaqooyinkii dawladdu burbureen waxa dhacday in guryaha fadhiyaan waxa uu aaba qaatay inuu ila ciyaaro jaska soo ciyaaro iyo shaxda taasoo yaraantii isagu ku maalad ahayd anigana waxaan jeclaa ciyaarinta kubadda waqti kamid ah waxa uu bilaabay in uu kubadda yiraahdo ma ciyaaraysid ilaa adiga badiso mooyaan waxaan bartay inaan ka badiyo kadib waxa uu dhahay haddaad iga badiso kubadda tagi maysid waxay noqotay inaan ka xanaaqay oo nidhaabo ma noqonayso oo yidhi may ilaa aan kaa badinayo waad fadhiyaysaa waxay qaadatay waqti badan de waxaan ka soo fikiray si aan kubadda u ciyaari karo bal inaan maskax keeni karo waxaan dhahay ciyaartii koobaad baan usii daayay si u badiyo tii labaad baan badiyey tii saddexaad baan haddaan kaa badiyana kubadda waan soo ciyaaraya haddaad iga badisana waxa weeyaan inaan ciyaar markaas okay haddaan kaa badiyo waad bixi haddaad iga badisana waad baxaysaa soo ka badiyey ballantii hadalkiisa oo ilaaliyey sidii buu ku tegey wadankii waan ka soo baxay qisada macayga hadhow soo doono waxaan kula samayn jiray yaraantii marna waan usii dayn jiray marna isaga guulaysan jiray marna aniga guulaysan jiray laakiin aan laabta ka ogaa in aan ka badin karo waxaan ku laamay dhowr iyo 10 sano ka bacdi waan la ciyaaray oo iga badiyey waan la ciyaaray oo iga badiyey waan la ciyaaray oo iga badiyey aad baan u hanaaqay markaasaan dhaaba waa goor ka badin jiray maadaama haddaan ciyaaray ayaad iga badis markaas wili waan ogaa inaad ii sii daynayso sidoo kalena waan ogaa in aad markaa badinayso aad ugu tala gashay laakiin waxaan rabay inay barato inay faa'iidahay inaad qofka guulaysato aad noqoto laakiin mararka qaarkood aad u ogolaan karayso dadka kale si ay guulaystaan oo dad farax
waxay saameyn ku yeelatay in ay muhiimadda noloshu ayna ahayn inuu qofku noqdo qof guulaystay qofku laga qaada dictator laakiin ay muhiimaddu tahay say danta ku jirta mararka qaarkooda noqon karayso inaad noqoto qof danta bulshada ka talinaya isagoo tiisa joojinaya si ay labada qofba u dareemaan farxad iyo dantiisa u dhammaystiro malfishinary waxay ugu aasaasay waxay ka mid ahayd in bulshadeenu ay jirto ururo siyaasiyiin meelo ay ku kulmaan laakiin ayna jirin dadka horumar ka gaadhay dadka meel tegay dadka cilmiga leh meel san oo kale wejiyada quruxda badan ee waqti fudud ay isku baran karayaan ay isku xiriiri karayaan bulshadeena ay ku celi karayaan kabacdi waxaanu samayn doonaa bal waxaynu ku fikiray bal sideynu bulshadeena wax usoo kordhin karaynaa sideynu u bedeli karaynaa maxaase jira marka waxaan samayn doonaa insha allah 10 daqiiqe soo socda inaan waxoogaa taariikhda nagu celiyo aftadaadna insha allah aan ku xiriiriyo balmaan missionary iyo sida ay relate ula tahay barnaamijka nii soo jeexinayo waxaa jirta taariikhaha qaar badan oo laga qoray bugaag filmaan laga sameeyey in ay jiraan 4 generation oo la isku bedelo ayaa akhriyay buga barbarian ama filimka barbarian uu ka sheekeynaya generationka iyo isbedelka waxaa jira marka generation 1 waxa la yidhaahdo dadka koobaad ee wax bilaaba ama ganacsi ha noqoto ama dowlad ha noqoto dadka waxa weeyaan waa dadka hawsha ugu adag nolosha ka bilaabo waa waxa weeyaan waxay la kulmaan dhib kasta si ay qaybta labaad ee ubadkooda u helaan nololta ka wanaagsan kuwa labaad waxa weeyaan way ka nolol fiican yihiin kuwa nolosha koobaad laakiin waxay arkaan waalidkoogii oo dhib haysato oo la dhibaatoonaya tusaale ahaan oo kale haddii waalidkiisu wax qori jirin generationka labaad waxba qori karaya laakiin xafad academica kama soo jeedo generationka saddexaad waxa uu helaa nolol aada u wanaagsan noloshaasoo ka wanaagsan ta koobaad iyo ta labaadba ah uuna adag isaga oo aabihii uu dhibtoonayo sababta aabihii waxaa usoo fududeeyey aabihii kale generationka saddexaad ilmaha oo dhalo kuwa afraad ah mana maqlo mana arko laakiin nolol lugsiisu ku noolaa nolol qurux badan oo raaxo ku noolaada awowgiisii koobaad ee dhibta soo maray war kama hayo waxa uu keliya soo arkay aabihii nolol fiican ku nool iyo awowgii halkaasna waxa weeyaan waa halka go-aanka laga qaato ama ay burburto uu ka go-aamiyo in siiro laga soo bilaabo ama ay kor u kacdo oo malo tagto tusaale ahaan bal haddaynu 4 generation ku qaadno oo dowladdeennii soomaaliya burburta ku eegno 60kii wixii ku horreeyey xornimaa lagu dagaalamayey 20 sano ka bacdi 80kii dowlad baynu yeelanay aada u qurux badan ilaa iyo 60kii waxay noqonaysaa 20 sano ka bacdi generationkii saddexaad oo noqonaya 80kii dadkii waxbarashada iyo nolosha caadiga noolaha ay ku noolaayeen laakiin generationka 80 ilaa 90 xilka qabtay waxay gaadhay inay dowladdeenu burburto oona aynu dowlad yeelan sidaa oo kale nolosha caadiga ah ama ganacsi haddaad bilowdo waxa weeyaan generationkan afraad waxa uu go-aan qaadanayaa inuu nolosha burburiyo ama inuu kor u qaado soomaali ka ahaan sideynu u saameyn karaynaa inagoo generationka koobaad taagan maadaama oo aynu nahay horta marka koobaad yaa ah generationka 1980 ilaa iyo 2000 dhasha u dhexaysa waxaan u badannahay inaanu nahay marka soomaalinimo laga eego generationka koobaad anaa macnaha inaku generationka afraad hadhowtooda waxaan ku dadaalayna samaynaya war nagama hayn karaya sideynu u dhisi karaynaa system aynu ku saameyn karayno generationka afraad ilmaha afraad eed adigu awowga saddexaad u noqon karayso sideed qaybtaa usoo geli karaysaa si aad adigu u saamayso kaa afraad aad u dejiso uu isaguna ka bilaabo nolosha uuna hoos u burburin uu u noqdo inuu generationka saddexaad noqdo tusaale ahaan oo kale halkaas waxa weeyaan haddii aynu eegno waxa weeye nolosha halkaas ka bilowday generationkii I think inaad la fahmay generationka koowaad ilaa generationka saddexaad halkaa markay taagan tahay haddaynu ugu talagalno generationkii burburin lahaa sidaynu kor ugu qaadi karaynaa oo qofkii laba samayn karaya oo generationka afraad noo noqon karaya generationka saddexaad maxaan ku heli karaynaa waa inuu nidaam u dejisano nidaamkaan u dejisano waxaa shaksiyan haddii uu qofku ugu talagalo faamiligiisa uu badbaadin karaya laakiin bulshada ma jira dad ku fikira oo ku fikiraya generationka afraad inaynu saameyno si bulshada soomaaliyeed ay u badbaado bal u fiirsa dowladooyinka caadiga haddayna taariikhda akhrisato halkaasi waxa weeyaan waa halka ay dowladuhu burburaan dowladihii Romania dhammaan dowlad kasta markay halkaa gaadho haddayna haysan dad ugu talagalay waxa weeyaan hoos bay u daadegaysaa buug waxaan akhriyey dowladda Jarmalka systemkeega iyo nidaamkeega haddaad u fiirsato dagaalkii koowaad adduunka dadkii ridada nabaroon ka ahayd dagaalkii labaad horseed bay ahayd maanta hadduu dagaalka saddexaad gaadho barteena ku soo laabatay laakiin waddanku u burbura uu soo laabay sababbay dadku dib ugu soo laabay sababtoo system bay haystaan dad communityga ka fikira oo u fikira jira ma jira bulshadina dad u fikira halkaas
سألوا تعاو بالبادين أوكي سيروا كم بالبادين كراينا والله هذا براكسي سيروا بدي كراينا تصالح هنا البشرة بينهم سوق علينا ما أنت إنتينا أن تشوفوا ده ما أنت سوق علينا كل كي لما كقيب قال كل كي كورة لو قفنا كديارنا صدق قف كهديسي وقل قف كسوق قيبش صدق كي قف طبعا كي قف هذا يسبيك كاها واحد بقول في قف كسامية طبعا قف أمانة كعسية بلاوي قاركون شقوين كون كذب بلين أو يكونوا هي كعسية أو بلاوي ganacsigii ay ka bilaabeen maalintaas oo ah 10% boqolkii qof 10kii aanu speakerka ku ahayn maanta iyaga qaban qaabiyay eventiga saa u qurux badan inaan dhammaantood iskugu iman horta oo socodka ma dhammaantood waxaynu marti maanta inoo ah 50 qof oo gaadhays which means 5 baynu sameyn x halkaa haddaynu 2 qof 5 qof 10 qof keenay 10kii qofna ay boqol keeneen shan marka lagu dhufto maanta 10 ay qaban qaabiyeen 50 qof oo speaker oo gasti oo Soomaaliya oo horumar gaaray oo noloshooda dabaray qof walbaaba oo diyaar u noqonayo inuu bedelo generationka afraad oo ay nawasaadkii bulshada 500 qof bay ku xisaabtamayeen maanta Stockholm inay imato eventkana oo qaban qaabin shantaa boqol haddaan 50 qof noloshooda bedelo ma bedeli karayna 50 qof noloshooda qofkii 5 qof sanadka dhan ma la hadli karaya ma saameyn karaya fursad ma u bandhigi karaya okay haddaynu qofkiiba 5 qof oo kala haatay 12 ka bilood 356 ka gasho adsan qof noloshooda u bandhigto fursad ay bilaabayaan ganacsi ama waxbarasho professor maalyahano dhaqaale lagu jira sidoo isbedel intee leeg baynu samayn karaynaa sanadada soo koob laakiin maanta aynu ka bilaabno sanadka koowaad inoo bilaabmay 50 qof baa inoo martiya 50 ka qof nin walba noloshiisa uu ka mid ah hadafkiisa uu gaaray waxbarasho ha noqoto ganacsi ha noqdo waxa weeyaan haddayna audience-ga marka ku xigta qof walbaaba uu shan saameeyo sidii aynu ka sheekeynayni waxaynu iskugu meel keeni karaynaa sanad kadib in 750 qof la isku keeno sanadka labaad haddaynu bartaa ku wadna keliya inaga oo 5 qof wadna waxa weeyaan dadka inuu wal qof walbaaba uu shan sameeyo waxaynu noqon doonaa 75 qof oo la hadli karaysa 3,500 iyo 3,750 qof haddii 10% kala haatay dadka ay ganacsi ama cilmi ama noloshooda ay go'aansadaan isbedelaan waxaanu sameynaa 375 qoys oo Soomaaliya baynu noloshooda u banaynay albaab ay ku noolaadaan oo bulshada kana caafici karaan haddaynu sanadka afraad tagno on 5 qof oo kala haatay qofkii la hadlayo waxaynu noqonaynaa maanta dadka gastiga ee qaban qaabinaysa ee maal visionary teamka kamid ah ee bulshada inay maal iyo maskax iyo muruq ka dhiso bulshada waxaynu noqon doonaa 1875 waxaynu la hadli karaynaa 1000 oo qof waxaynu ku saameyn karaynaa 10% oo kale hadda dadka ku saameeyna sidii oo kale imsay noqon karaysaa haddii xisaab sii sameeyno 7 sano haddaynu sameeyno kaliya jooga inagoo qofkiiba 5 qof oo kale hadii la hadlayo waxaynu 5 sano sameyn doonaa 12 milyan Soomaalidu waa soo haddaynu 7 sano sameeyno qofkiiba 5 la hadlo waxaynu la hadli doonaa 8 milyan miyana Soomaalida la jibaar guri kasta aan geli karin miyana geeska Soomaaliya ilaa geeska Afrika oo saameyn ku yeelanay diyaar waa uma inaan generationka shanaad generationka afraad aan saameyn ku yeelano hadafkeena waxa weeyaan bulshada sideenuu maalka iyo maskaxda iyo muruqa uga dhisi karaynaa sideenuu la tartami karaynaa bulshada kale maanta aad baan ugu faraxsanahay in dhammaanteen magacaynu wada wadno Soomaali ama guulaysan ama haguulaysan ama dhibkeen ama baraarkeen ama horumar gaar waxa tahay qof Soomaaliya haddii aad darajo gaadhana magaciina wadataa haddii aad guul aad u soo haysana magacaada wadataa soo magaca Soomaaliyeed kor ma qaadna